dhalinyaro maanta anigana sharaf iyo karaamo weyn ay tahay inaan meeshan idinku imaado fursad isku meynaan helin intii xamar la joogo muddadeedu aad u gaabneed laakiin halkaanaan fursad isu helnay inaan idin soo daba kacoon halkaan imaado runtii dagaal haddii la galo waa la kala bartaa dadka madaxdaa la kala bartaa saraakiishaa la kala bartaa askartaa la kala bartaa dhammaan dadka waa la bartaa qof walbana doorka uu qaato maalintaas ay maalinta adag ay ahayd maalinta fiican oo nabaddu ay jirto nin kasta ahi waa fiican yahay waa xaragoo yaqaana waa faani yaqaana waa muxuu ka araaday meel kasta waa ka soo bixi karaa laakiin maalinta ay xaaja adkaato oo ay maxaan ku iraaday hawluhu adkaadaan maalintaas ninka ka soo baxa hawsha ee si fiican uga soo baxa waa ninkaas dhalinyaro ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed asoo kaligiis ah oo kaashanaya dadka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ayaan dagaal soo bilownay muddo sanad ka hor ah dagaalkaas uu soo bilaabay maalintaas waa la qosqoslay dad badan waxay lahaayeen hadda iska soo noqon doonaan ma iga meel tagayo oo dadkanaga waxa loo sheegay war waa idinka soo tagayaan hadda idinka soo tagayaan muxuu ahay waxba yaanay muxuu ahay idin waxaynan annagoo intaan ka tira yar idinku aadan qayb ka ahayn dhalinyaro kale oo idinla walaalihiin oo meesha idinkaga soo horreysay ay joogaan tiradoodu aad u yar tahay qalabka ay haystaan oo aad u yar yahay ayaa amisoon oo yaabanoo lahaye meeshaana idin joogaynaaye socda ayay halkaa ka soo dhaqaaqeen waa yimaadeen berigaas amison annagu kumaanaan qanci karin Soomaaliyeedna waa dagaalan u soconaya nala gala oo waxay noo arkaayeen dad aan dagaalku dhab ka ahayn oo aan meelna u soconin laakiin hadda maanta way fahmeen inaan dagaalku dhab naga yahay annaan wax qabsan karno annagu waqti ma qabno dalku waa dalkeenni cid aan u fadhina meel oo aan sugayno oo dawladii xoog leh wax walba u dhameystiran yihiin oo kartoon ku jirto ayadoo wada baaka ku jirto noo keenaysa ma jirin